sheekh Shariif Sheekh Axmed waxaan rabnay inaan wax kaa weydiino jawgii ay ku asaasmeen maxaakiimta islaamiga Soomaaliyeed iyo sheekh Shariif Sheekh Axmed doorkii uu ku lahaa. maxkamaduhu ma ahayn fikrad cusub waagii 91kii waxaa la socoteen Shuxad Macalin raxmatullaahi calayhi inuu isku dayay inuu maxkamada asaaso si cala al-aqal amniga iyo wax looga qabto waagaas maadaama Soomaalida ay ku cusbeed riditaankii Maxamed Siyaad Barre oo dhinaca siyaasadda iyo dadkii ka soo dagaalamay jabhadaha ay u arkeen fursad weyn in ay iyagu haystaan waa adkeed inay maxkamadu hana qaado kadib marar badan ay soo laabatay Madiina waa tii maxkamad laga sameeyay mar kale waa tii laga sameeyay maxay ahaato Kaaraan oo waliba meelo fog ay gaartay mar dambe waxaa laga sameeyay dhulkan xamar qaybtiisa kale ilaa marko ay ilaa marko ilaa Baraawo ay gaartay marka fikradda maxkamaduhu waxay ahayd horta fikrad jirta kadib maxkamadii ugu dambeeyay waxay soo gaareen 2000 waagii halkan lagu dhisay carta dowladda Cabdiqaasim marka uu meesha yimiday ma dhicin nasiib darro in maxkamadihii laga faa'iideysto oo amniga lagu sugo ayageena inay sii jiraan waa suura gal weys dhowr sano kadib dalkii waxaa ka bilowday fawdo markii dowladda Cabdiqaasim ay shaqay weysay waxaa soo laabtay boob iyo dhac iyo dil iyo kufsi iyo afduub aan caadi ahayn isla markaasna waxaa shirka socday Nairobi shir dib u heshiisiineed waxaad moodaysa marka aad fiirisid marka in dadka tuugada la yiri booba dadka dowladda soo socota inta hadda aad boobi kartiin 2003 markii ay bilaabatay waliba dhamaadkeedii waxay ahaaday markii ugu dareed oo afduubka iyo gaadiidka la dhaco aad u jiray marka waagaas runtii waxaa la isweydiinaya xataa haddii dowlad la keeno see loo xali doona arrintan dhacday Soomaaliya maxaa yeelay qof walba oo Soomaaliya wuxuu ka fikirayay marka uu ka baxay gurigiis maxaa kugu dhici doona maanta ma aqaan inay xasuustiin waxyaabaha aadka xanuunka lahay oo dhaca waxaa ka mid ah arday iskuul u socota in maxay ahaato jidgooyo lagu sameeyay oo maxay ahaato dhib weyn oo gaaray gaadiidka sidaas oo kale dhib badan ka jiray meelaha waxa lagu afduubo marka aad u fara badnaayeen oo dadka lagu kaydiyo waxa dhacaysa dadku inay dhintaan oo haddana lagu yiraahdo meydkoodii waa naga iibsanaysa oo lacag naga soo gashay yani meelaha ugu foolxum ay ahaan waxa dhacaysa dadka in la ciqaabo si ay lacag u bixiyaan arrintaas marka ay dhacday aniga waxaan ahay macallin dugsi iskool sare aan maxay ahaato macallinka ahay waxa dhacday in la afduubay wiil yar oo iskuulka dhiganayo oo fasalka 6aad ku jiray taas waxay nagu dhalisay macallimiinta dhammaan dareen cusub marka waa shirnay laba qayb aan isu qaybinay qayb loogu talagalay inay wacyi gelin bilowdo iyo qayb bal wiilkii inay baadi goobto marka aniga iyo mudiirkii madrasada waxaa naloo xil saaray oo mas'uuliyadeena ay noqotay inaan wiilkii baadi goobno rag kale oo ka mid ahaa Axmed Macalin Fiqi oo isku meel aan ka shaqeynaynay markaas waxaa loo xil saaray inay diyaariyaan barnaamij iclaami oo dadka loogu wacyi geliyo marka labada shay isku maraan bilownay intaas waxaa garab socotay waxaa jiray oo anu markaas aan madax u ahay urur la yiraahdo golaha jaamiciyiinta Soomaaliyeed oo asagana ujeedada aan u asaasnay ahayd in dadka lagu wacyi geliyo sida dhibaatada wax looga qabto isla markii waxaan isugu yeernay dadkii golaha ku jiray intii aan heli karnay iyo dad badan oo kale oo aan aqoon ku tuhmaynay waxaan ka sameynay diraaso sida waxaan looga hortagi karo markaas isaga wax fikrad ah oo maxkamadda madaxeena kuma jirto laakiin waxaan ugu jirta fikrad ah waa in xal loo helo arrintan waxaan isku dayaynay markaas in raadiyaasha iyo iclaamka in la isku dayo in wacyigelin badan laga sameeyo iyadoo magacii golaha jaamiciyiinta la adeegsanayo diraasadii markii aan soo sameynay waxaa dhinacaas kale socotay wiilkii in la daba socdo waxaa noo soo baxday wiilka kaliya inaan soo dayno inaysan mushkilada ku dhamaanin waxaan ka fikirnay in la helo xal maxay ahayd kama dambaysa waxaan u jeesanay kadib dadka deegaanka inaan la kulanno waxaan la kulannay niman la yiraahdo barbaar weyn oo dadka meesha jooga ah oo qabaa'ilka dadka dhalinyarada ah wax afduuba familka ay ka dhasheen waxaan u sameynay afur suqbacada ugu sameynay waxaan kala sheekaysanay arrintii waxaan dhahnay arrintaana jirta ma aha inaa adinku dadka afduubtiin laakiin
wixii deegaanka ay ka dhacayaan waxaan aragnaa inaad gacan ka geysan kartiin waxaan rabaa inaad gacan naga siisiin runtii xasaasiyaday muujiyeen laakiin haddana akhiiran waxay ballan qaadeen in nagala shaqeeyaan arrintii iyada ahayd sheekadii meesha ka dhacday waxay saameyn ku yeelatay deegaankii deegaanka marka waxaa ka dhacay abaabul culummadii iyo odayaashii xaafadda iyaguna abaabul ay sameeyeen waxaa bilaabatay maalmaha jimcada in khudbada looga hadlo waxaa dhacday in dadku intay isu soo abaabulaan meeshii dadka iyo gaadiidka lagu haystay ay ku mudaaharadaan taas waxay dhiiri gelisay dadka deegaanku inay dadka wanaagga jecel inay is-abaabulaan waxaa dhacday marka akhiiran inay ku heshiiyaan dadkii in maxkamad la sameeyo falilaahi alxamdu maxkamaddiyaa la sameeyey maxkamadaasaana aniga guddoomiye ka naqday marka in aan iskuulkii iska dhaafo iyo inaan maxkamadda ka cudur daarto labadaasaa ii soo baxday marka aan rogrogay waxaa ii soo baxday shaqa in la heli karo mar walba laakiin haddii arrintan fursad laga dhigi karo inaan isku dayo inaan bal fursad inaan ka dhigo isku dayo ilaan haddii aan ka cudur daarto macnaheedu waxaa waaye isku daygii la sameynaya waa fashilmay waxaan qaatay go-aankaas dadkii aan la kulmay waxaan u sheegay inaan aqbalay hawshii aan bilaabnay waxyaabaha oo aadka khatarta u ahaay oo dhaca waxaa ka mid ah ciidan ha laysu keenaan dhahna qabiilkii ciidankii laysku keena waxaa ku jiray ninkii garaashka wax lagu afduuba iska lahay oo dadka afduubi jiray oo qabiilku ay usoo doorteen inuu noqdo nin ka mida ciidanka weliba loo sharxay inuu hogaamiye ka noqdo ciidanka isla markaasna weli waxaa gacantiisa ku jira gaadiid iyo dad a lagu tuhmaa annagoo fadhina markaa guri ku yaalla cc ayuu noo soo galay isagoo rag badan ay la socdaan marka ninkii la rabay inaan wax ka qabanno annagiioo gacmo raaracno oo aan waxba haysan isagiioo 30 wiil wata oo deegaankii uu yaqiin jooga annagoo ku ah dad maxay ahaato meesha aan dad badan ka aqoonin runtii waxay ahaaday arrimaha aadka aan u xasuusto adugu akhiiran waxaan ku guulaysanay jiko aad u weyn oo dadkao dhan ay wax ka cunaan dadka dabkileyda ah waxaan dhahnay raashinka ha cunaano maadaama wixii ay ka shaqeynayaan aan goynay raashinka hala dhaafo dadka quraac iyo qada iyo casha ha loo sameeyo kadib waxaan sameynay kulan oo hotel lafeyn aan ku qabanay maxkamadihii o dhan aan meesha ku casuunay waxaa la go-aamiyey markaas in maxkamadaha la mideeyo oo aysan suuragal ahayn maxkamad kastaba si gaara inay u shaqeyso sida aada la socotiin magaalada waagaas waxaa ka jiray xawaajis ama maxay ahaato khad cagaaran dadku waa laysu gudbira laakiin laysuma furayn maxkamadihii wada shaqayntoodii bilaabatay iyo wada hadalkaas dhacay wuxuu kusoo kordhiyey magaalada in dadku ay isu socdaan oo magaalada ay isu furanto marka halkaas waxaa ka bilowday mashruucii maxkamadaha islaamiga ah oo wada jira guddiyaa loo bixiyey guddigaas waxay diyaarinayeen barnaamijka maxkamadaha islaamiga taqriiban muddo sanad ah maxaa yeele arrintu ma fududayn muddada sanadka ah waa la wada shaqaynayey howlgallada inta badan waa la wada gelayey waa la wada tashanaya laakiin midowga laguma dhawaaqin 2005 lagu dhawaaqa midowga intaasna waxaa loo jeeday in loo bisleeyo dadka shaqaynaya laftigooda midowga maxaa yeelay sida aad la socotiin dagaaladii sokeeye oo ka dhacay magaalada muqdisho waxay sababeen kala shaki badan oo dadka magaalada degan marka waa lagu guuleystay runtii dadka inay isu tagaan midowga lagu dhawaaqay waxayna ahayd fursad cusub oo caasimadda ay gasho